بسم الله الرحمن الرحيم anigoo magacaygu yahay Bashir Ismaan Awad saakay ayaa waabariga waxay soo gaareen warbixino YouTube-ka laga keenay iyo maartay media ka hadlayo ninkaas oo geeriyooday iyo waxyaabo noocaas ah marka waxa rabaa dad badan baa soo wacay sidaa darteed marka waxa weeye in dadkii saaxiibada ahaa iyo dadkii aniga maartay aan media iska baranay inaan u sheegay inaan noolahay dhibaatana qabin dadka waxaas hadda ku hadleen oo nasteexaynaya waxa rabaa inay maartay arrintaasi aan anigu noolahay wax dhibaato ah jirin hadday meel kale ka heleen hadday iyagu saas ay moodeen dan moodeen ay ka baxaan waa arrin fiican ahayn waxaan la yaabay oo kale wuxuu ku soo darayaa ninkan magaraysa mediahan magaciisa wuxuu ahaa galangal media oo YouTube-ka galangal media waa ku ugu qoran marka waxa weeye arrintaasi waxay la noqotay aan maartay suurtagal ahayn waxaan marka codsanayaa ninka inuu horta arrinta ka noqdo oo aad foolxun anigu aan la yaabay qof bilaadan oo nool oo shaqeynaya saaka anigi dad soo wacay dad baa intay soo dowlad gareeyeen iyo soo dirayo ma yaab wax anigu macnaha la yaabay bay noqotay dad badan oo soo wacay dal iyo dibadba joogo oo ehelka ama kamida ama dad asxaabteeda ama dadka inta aan maartay ka hadlay JV-ga ibartay in badan oo Soomaaliyeed oo mahad celinaya oo maartay aad uga xumaaday oo mahad celinaya marka waxa la yaabay marka wuxuu yiri hadda meedkiisa laga saaraya isbitaalka aas qaran baa loo sameeynaya marka aaska qaran wuxuu noqonayaa aroos qaran isu bedeli doona insha Allah anigu waa fiicnahay waa caafimaad qaba wax dhibaato ma jiraan intaas aan rabaa inaan la wadaago dadka wax dhibaato ma jiraan xafiiskayga baan fadhiyaa shaqadeedii baan sida u haystaa wax dhibaato ma jiraan xafiiskiisa taliye saldhig sida baan u ahay waadi jeedaan waa la bisnahay wax dhibaato ma qabo alxamdulillah rabbil caalamiin meediyaasna oo nasteexay inuu arrinta ka maartay dhibaatada inta la eeg qof nool inuu yiraahdo waa maartay waa dhintay waa wax laga qurux badan yahay la tahay alxamdulillah rabbil caalamiin taas ku soo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh